waxaan mar kale warka idinku xaqiijinaynaa shirkan jaraa'id in maanta saacadan aan joogo gebi ahaanba burcadii iyo mooryaantii la soo afjaray oo amnigana si buuxda ay gacanta ku hayaan laamaha amniga ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. bismillaahir rahmaanir rahiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam. dhammaan waa salaamantii reer koonfur galbeed meel walba aad joogtaan dal iyo dibad. waxaa ogtihiin saacadihii la soo dhaafay in magaalada Baydhabo ay kooxo burcad ah oo mooryaan ah oo isbaarley ah ay ka abuureen fadqalalo. waxaa ogtihiin markii ugu horeysay inay weerareen suuqa xoolaha halkaas oo dad maaragtay ganacsato ah oo sayladaasi ama suuqaas ku kala iibsanaya xoolaha ariga geela iyo looda inay weerar ku qaadeen halkaasna maaragtay dad badan oo shacab ay ku dhibaateeyeen. kadibna ciidamada ammaanka ayaa ku baxay falkaasi kadibna waxay u carareen dhankaas iyo xaafad la yiraahdo Oladka halkaas haddana ay fadqalalo ka abuureen. meeshaas ayaa haddana mataqaanaa looga daba tegey oo ciidamada amniga uga daba tageen kadibna waxay u soo dhuunteen dhanka centerka magaalada. waxaan idin xaqiijinaynaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in kooxdaasi fadqalalaha ka abuuray saacadihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo inay ahaayeen koox isbaarley oo burcad ah oo mooryaana haba yaraatee aysan ahayn kooxo mucaarada ama wax siyaasad ku lug leh aysan ahayn. dadka marka siyaasiyiinta ah ka raadinaya nafiska siyaasadeed kooxahaasi burcadka waxaan leenahay meeshaas idinkama jirto. nimankani waxaa niman mooryaana oo shacabka dhibaateynayay oo shacabka dhacayay oo shacabka weerarayay oo guryaha dadka ugu daadanayay oo dadka dhibaateynayay ahaayeen. ugu dambeyntii saacadan aan idinla hadlaayo waxaa si dhammaystiran loo soo afjaray kooxahaasi burcadka ah. ammaanka goobihii ay fadqalalaha ka wadeenna waxaa gacanta ku haya ciidamada amniga oo dhammaystiran koonfur galbeed oo hal qaybna aysan ka maqnayn ayaa gacanta ku haya. kooxahaasina waxay noqdeen kuwa la soo afjaray si dhammaystiran ayaa loo soo afjaray. xaalkana waxaa gacanta ku haya ciidamada amniga ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. waxaan idin xaqiijinaynaa shacabka koonfur galbeed badqab mar kale waxaan ku celinaynaa oo xaqiijinaynaa badqabka shacabka koonfur galbeed Soomaaliya nabadgelyadooda hantidooda ilaalinteeda inay tahay waajib saaran dowladda koonfur galbeed balan uu qaaday madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cidna aan laga ogolaanaynin inay ku ciyaarto amniga iyo wada noolaanshaha iyo wada jirka shacabka koonfur galbeed Soomaaliya. gacan walba oo isku dayda inay ku ciyaarto amniga iyo wada jirka dadkaana waxay ogaanaysaa in la goyn doono oo la jari doono. marna loo dul qaadan maayo dadkan oo dhibaatadooda ka soo baxay oo maanta nolol iyo barwaaqo iyo maaragtay mustaqbal ifay oo u muuqdo in kooxo mooryaana burcada intay soo aruursadaan ay isku dayaan dadkeena inay horumarkooda hor istaagaan. waxaan mar kale warka idinku xaqiijinaynaa shirkan jaraa'id in maanta saacadan aan joogo gebi ahaanba burcadii iyo mooryaantii la soo afjaray oo amnigana si buuxda ay gacanta ku hayaan laamaha amniga ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. Baydhabana ay tahay mid nabad ah oo xasilan. meelihii ay fadqalalaha ka sameeyeen hadda ay maxay ahaaytay nadiifin iyo hagaajin ay ka wadaan ciidamada ammaanka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. haddaba waxaan rabaa inaan hal eray iraahdo dadka siyaasiyiinta ah ee nafiska siyaasadeed ka raadinaya inay maaragtay kooxahaasi dadka dhibaateynayay inay maaragtay nafis ka raadiyaan ay u muujiyaan inay yihiin dad ama mucaarada ama siyaasad ka shaqeynaya haba yaraatee kuwaasi wax siyaasad ay ka shaqeynayeen ma jirto.